ciidamada ammaanka degmo ganacsiyada Wajaale ayaa kantaroolka galbeed ee magaaladaasi ku qabtay kaliya iyo beerka doofaarka oo si qarsoodiya loo soo gelinayay Soomaaliland kana soo tallaabay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana arintaasi aan wax ka weydiinay maamulka degmada Wajaale waxaan uga digaynaa wax beer lagu sheegayo in aan garanay oo ilaa ay xad aad u fara badan ayaa hadda jiraale Itoobiya laga soo geliyay qoladii baashii booyada loo jiray doofaarka ahayd inay tahay inay wax kala tahay waxa loo wax yahay la garan maayo waana wax dhaaf ruuxooyin baa lagu qaaday ilaa Hargeysa ee la geeyo Wajaale iska daayo toosan jiro umada waxaan uga digaynaa hadda jiraale waxyaabaha noocaas hilibkan qalanay aan waxa loo yahay la garanay ya inaan hadda jiraale la isticmaalin meesha lagu sitay arkaan ay noo soo sheegaan inta soo jeer baan qabanay cidiiseetana maxkamadaha u geynay inuu maanta ugu dambeysay baan qabanay umada waxaan uga digaynaa inay hilibbahaasi ama beeraha ahaada ama hilib kale ha ahaade waxaan ogeyn wuxuu yahay cidda sideetan maxkamad baan u geynay waa beer leeyahay ma aha arrin cusub oo uguba in badan baa ayuu xagga Itoobiya ka yimaadaa saldhigga iyo qolada wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa xeerlaalinta dhowr jeer baa arrinkooda halka aan ku galay niman documents haysto wasaaradda xanaanada xoolaha waraaqa ka watanaalena waanu aragnay hase yeeshee maanta dadkii watay lama hayo oo way baxsadeen marka arrinkiisu arrin baadhis iyo xaqiijin u baahan maaha waa ka la iskaga baxsaday wuxuu yahay la garanaynin sidaa daraadeed maanta xaaladan aad arkaysaan waxaan uga faa'iideysanaynaa waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Xasan Gaafaadhi wasiir Xasan Gaafaadhi wasiir halkan degmada Wajaale waa meel istiraatiiji ah waa meesha rugta ganacsiga Soomaaliland xoolaha ugu badan saylada Wajaale ayay ka dhoofaan san leeyahay wasiir waxa inaga dhiman in la helo laboratory lagu baari lahaa degmada Wajaale inay hesho laboratory lagu baari lahaa xoolaha la qalayo ama lagu baari lahaa sida beerarka iyo waxa la mid ah Itoobiya inooga soo talaabaya si kastaba aatee kaliyahani qulmay iyo beerkan doofaarka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay hadalhayntiisu ku suuqyada magaalada Wajaale in si qarsoodiya loo soo galiyo dalka Soomaaliland ugana yimaado dalka Itoobiya Buulad Ali Ibraahim Kacse Sab TV magaala ganacsiyada Wajaale